iyadoo maanta caalamul islaam si weyn looga dabaaldegay munaasabada Ciidul Adha ayaa sidoo kale magaalada Garissa si la mid ah looga ciiday mudane Ducaale oo fagaaraha General Maxamuud ee magaalada Garissa kula hadlayay shacabkii halka ku soo dukaday ayaa ka hadlay tirakoobka oo qaadanayna shay raqiis ah tirakoobka wadankan ayaa lagu qaybsadaa dhaqaalaha wadankan tirakoobkan ayaa lagu qaybsadaa quraasta baarlamaaniga iyo MCAs tirakoobku wuxuu fiican yahay qolo kasta waa inay ogaato intay tahay marka wadanku idin lagu isaabeeyay insha Allah annagana waan imaanaynaa tirakoobka waxaa la culimada ee masaajidada ka sheegaan inta soo artay waa in dadka baadiyaha loo sheego dawladana waxaan ka codsanay inay waqtigaas ay too ay geyso meelaha baadiyaha biyo fara badan iyo raashin u geeyo oo dadka ay weega kale ay noo joogaan tirakoobka waa shay muhiim ah Ilaahay gaarsiiyo toddoba bari buu soconay hadda Nairobi joogto kaarsi uu ma xisaabayo marka xarmay dadka Nairobi joogaan oo reer Gaarisa ay soo noqdaan waa habeene carruurta ku diyaar joogaan kuwa maqan haday safar jiraan oo dibadda wanaag sheegto marka tirakoobka Soomaaliyeed garab loogu noqdo midda kale waa midda muqaadaraadka waa dawladda u tagayna xaafadaha ee muqaadaraadku badan yahay xaafadaha daartin dhalinyaro meel fadhiyaan dadka kale oo ajnabiga soo tagay waa in loo sheego culimada iyo odayaasha waa inuu sheegaan hadda xaafadaha waxaa lagu gadaa jannaha waxaa lagu gadaa bangi marka waxaa soo socdaa tii ka dhici jirtay Mombasa ka dhici jirtay soo socda Mombasa waxaa lagu baabiyey iyo xeebta muqaadaraad marka carruurteedna iyo dhalinyaradeenna waa inaan ilaashano waa inaan dhalinyaradeenna aan ilaashano waxaa weeye bulshada dhalinyarada muhiim waa inaan ilaashano waalid kasta mas-uuliyad ka saaran gabadhaada iyo wiilkeeda dawladda ha ku hadlaynin culimada ha ku hadlaynin